aniga horta warbaahinta waxaan bilaabay 2013 baan bartay waxaan ka hawlgalay markii ugu horeysay television la yiraahdo Bulsho TV oo markii hore loo kala ahaa hadda si noqday hawada ku jira markaas anigu aan ka shaqo bilaabay magaalada Hargeysa oo kaliya waaxigada laga daawan jiray hadda laakiin deegaanada Soomaalida oo dhan waa laga daawadaa waana laga yaqaanaa television Bulsho TV ayaan ka shaqo bilaabay muddo ayaan ka shaqeynayay adigoo ku dhawaad 2 sano ah 2 sano iyo waliba wax dheer markaasi waxa anoo television ka shaqeynay ayaa waxa igu soo furmay arrimo family waxaan damcay inaan safar u soo aado Puntland oo halkaas maamo eedaday ah oo halkaas joogtay inaan halkaas isku soo booqdo arrimo family ma soo baxay kala duwan بوصاصة مسوا قروي بوصاصو بوصاصان إيمي بوصاص مركان إيمي مركي وحان كشقة بلا إذا عد أني هذه شعب جعلها إنه مقعد كستون سفي عنه أنا وحسوس إذا عد أسوي بنتي مدكهم من كشقيني إسلام مدكهم من إذا عد كشقيني ما دام أنا السفر كمركز بدلا أنا كوي مني أنا هاي سفر رجيني أنا كوصل لكتو لكن وها سفر بوقشة muddadaasi aniga danta aan soo yeeshay ay dhamaanayso ayaa waxaan sir guriga ma fadhiyi kartid waa inaad sii shaqaysid waliba wiil musamil la oran jiray wariyaha oo gobolada Shabeellaha Dhexe ka soo shaqeeyay ayaa igu dhiirigeliyay in uu idaacadaas igeeyo oo wiil saaxiibkiis uu leeyahay oo iga codsaday inaan halkaasi muddadan magaalada ku suganahay aan halkaas ka sii shaqo bilaabo idaacadaas aan wareegay idaacadaas ka shaqo bilaabay muddo kooban idaacadii ka shaqeynayay waan ka tagay على مركز وحان لكل من تلفزيون KSBC أنا إذا عدي كشقية هرت أرنتي أنا ومي مقالة أيوة بلا عرفتي سهل إنه كنت يكرواي مدبضنا عليه قبتين نسيت شو مقالة مركز إسلام تلفزيون KSBC وحرادنا يجور وشقيسة أو تلفزيون ومركز فري قبت تلفزيون كأقابل سن تلفزيون كي عطسي مقلي وان حرستي وكوبول استي قبل بدنا نكو حرسان لكن ودمنتي aniga ku guuleystay halkaas waxaan kaga shaqo bilaabay telefishinkii SBC oo ina qoray telefishinka labaad marka SBC wuxuu ahaa telefishin iyo idaacad isku jira halkaas waxay igu noqonaysaa idaacadda saddexaad ee ka shaqo labaad ee ka shaqeeyo telefishinkaas in muddo ka shaqeynay deegaankii aan si fiican aan ula qabsan waayay niyadana ku hay inaan noqdo oo deegaankayga Hargeysa oo meesha ku koro ku dhashay ku barbaaray iyadoo niyadu ku hay inaan u noqdo khilaafiyo aniga iyo soo kala dhaxgal qolada shaqada saastarteed shaqadii waan ka tagay waxaan soo aaday magaalada Garowe halkaas waxaan kala shaqo bilaabay idaacad la yiraahdo Daljir radio Daljir ayaan la shaqeeyay telefishinka markii hore waxaan u yimid Puntland TV iyagan casuumad ka haystay laakiin markii dambe telefishinkii way suurtagal weeyday inaan ka shaqeeyo waliba arrimo maadaama aniga deegaanka Soomaaliland aan ka soo jeedo telefishinka waa telefishinkii Puntland halkaas wax ka yimi caqabad iyo beel bay arrintii gashay si fiican suurtagal way noqon weeyday casuumadii markaas aan ka soo helay waxaan u rogtay radio Daljir muddo kooban aan iyadana halkaas kala shaqeynayay waxaan soo aaday magaalada Muqdisho waxaan markaas la shaqo bilaabay telefishinka Home Cable TV telefishinkaasi Home Cable TV waxaan la shaqeynayay muddo isla markii waxaan u digay rogtay telefishinka Goob Joog oo isaguna idaacad iyo telefishin ah telefishinkaas Goob Joog in muddo ah ayaan ku nagaa halkaas aan ka shaqeynayay magaalada Muqdisho halkaas ka soo shaqeynayay muddo kadib waxaan soo digay rogtay dalka Kenya magaalada Nairobi arrimo waxbarasho iyo waliba arrimo kale oo shaqaba waxaan u yimid magaalada Nairobi ilaahay ma hadii maanta ilaahay wuxuu qadaray isku nimaadno safarkii saxaafadda Nairobi soo marayo wallahi caqabado badan ma jiray caqabado badan oo aan la soo kulmay baa jiray waxa jiray oo talaano kale in
meel aan ka shaqaynayay waxyaaba aad ka maskaxdeeda uga guuxa ee aan ka bixin waxaa jirta in meel warbaahin oo aan ka shaqaynayay in muddo aan ka shaqaynayay haddana xaquuqda aan kaga shaqaynayay iska heeda xaquuq yar anigana qof safar oo aan magaalada markaas magaaladiisa joogo magaalo kale aan ka shaqaynay maadaama safarkayga ee warbaahineed oo socdaalkayga warbaahineed oo safar ahaa markaas waxaan ku sugnaa mid kamid ah gobolada Soomaaliya ان كشقيني حقوق في عنكم انا شقينين ماشان كشقيني حقوق امان كذا مو في عني ماشي عندنا هاي ماشي كشقيني يعني عقبده لما راي دباتوين لما راي كو حكل دوما مركه قار لا كل مي hanjabaadad la kulmaysay ana caqabadaha soo dhan ku shaqeynay hadal mushaarkayga muu ahayn mushaar kaafinaya in aan ku shaqeeyo waxaan uga baahanahay in ka isticmaalo in hadana meesha raba aan ku gaa inkasta familkayga anigu mar walba uu ikabay intaan warbaahinta ku jiro mar walba familkayga uu ikabay oo gacan qabanay markaas waxa dhacday tan xaruntaas aan ka shaqeynay intaas caqabadood ayaan kala kulmay hadana shaqadan ka qabanay waxay ahayd shaqo aad u badan waan qabanay on dareemay culeyskeedan kaliya aan dareemay ay ahayd waxa dhacday Cabdiqaadir oo dhalinyarada markay meel ka wada shaqeeyaan way kaftamaan waa la dhaweystaa waxba la wada wadaaga dib iyo dhaaf waa la wadaaga dabcan anigana waxaan ahaa qof aad u furfuranta kala shaqeynay inta badan waxay yihiin qolaalo qof kasta oo la kulmo waxay noqdaa qof familkayga camal kamida in waxa dhacday habeen in magaaladan ka shaqeynayna bandoob ugu soo rogo xaalad amaan darteed bandoob ay noqotay ciidana lagu soo daadiyay adiga waxba qasnaa xaaladda habeenkaas aad u qasnayd waqti dambe ayaan aniga waxaan ka baxay warar baan ku raagay war habeen waqti dambe ka baxay wararka waa la duubi jiray waxa la sugi jiray warka soo dhacay gobolada ka soo dhacay in la duubo warar baan duubay kala duwan baan duubay markaas waan dahay gabar saaxiibaday la socotay Faadimo la yiraahdo waxay ugu tiri maadaama uu bandow ay tahay halkan ma seexan karno xaruntii ma seexan karno labadeeda xaafadoodna laba xaafadood labada daaf magaalada kale yaan ay ahaayeen taksina ma shaqeynaayo mana lagoyn karno dumar baan nahay oo caqabad iyo dhibaatada way iska jirtaa marka waxay ugu tiri wiil meesha ka shaqeynayay ayaan oranayaa naqaad nacaawi wiilka waan tagnay waxaan ka codsanay inuu nacaawiyo wali anigu waxaan ku yiri anigu wiilkaas ma tagay adigu u tago maadaama qof iska yacniga ciyaartiisa kaftankiisa iska badnayd waxaan ku yiri adigu u tag wiilka gabadha u tagtay wixii waa dhaqaadii hal saac kadib isuga adigu waxaa dhacday in 12 habeenimo ay meesha xogaa magaalo iska dhaqdhaqaaqeedu iska yaryahay maqribka waa la iska kala xarooda 12 habeenimo dareemi kartaa waqti aad u dambeeya la gaaray waxa dhacday wiilka gabadha ku noqotay waxay ku tilmaan naqaadid markuu wiilka ka soo xaqiijiyay inuu ka tashanay in kale wiilku wuxuu yiri inuu qaadayo wadi ku ciyaaray talaan ugu cadaatay aniga gabadhii marka waad ka xanaaqaysa qof yacniga intaas oo dhan aad sugaysay oo ku dhibaatay oo dareemi karto saaka shaqada uu soo galay ku jiro 12 habeenimo warwar dareemayo dhibaato la kulmaayo inta kale eeda markaas maama eedadiya la joogay oo yacni aad iiga warwaraysa telefoonka mar walba hadana qof xanuunsan mar walba soo wacaysa igu soo celinaysa yacni aan laftarkayga cabsiba igu jirta maadaama gabar baan ahay waan waqti dambe wiilkii waa ka xanaaqay waan canaantay waan ka soo tagay in amarka ilaahay baabuur waxana soo qaaday ciidamana soo qaaday guryahaygana la kala geeyay wiilkii halkii colaadii ugu qaaday intii wixii ka dambeysay wiilkii ilmo hadlin lama hadlin muddo markay sidii ahaatay wiilku wuxuu sameeyay inuu daba dhigto marka aan warka galaayo kala wararkan soo diyaarsado kala way kala daadinaya warka habeenkii oo kale isaga ku qoran marka qaar diyaarinayo marka maamulku warka muxuu u dahay wuxuu leeyahay gabadhan ayada diyaacday adiga wiilkii wuu dhibaateeyay mar walba wuxuu noqday inuu si joogto ah u dhibaateeyo la daba galo marka waxaan u tagay maamulkii u tagay waxaan tiraba 3 jeer ka badan maamulkii la fariistay waxaan iri wiilkan dhibaato yacni wuxuu igu wadaa xadka baxa igu wadaa mar walba uu dhibaateeyaa asaga ma ahana xataa maamulka iyo cid kastoo shaqaale ah way ogtahay wiilkan dhibaatada igu hayo marka qaar waxa dhacday in shaqaalaha inta isku kan yimaadaan ay dhahaan cimay adiga gabar baa iska aamu asaga yacni la waayay qof ku dhiirada inuu yiraahdo waxaan gabar waayay ka xisho maalintii dambe maya shaqaalu kiyaha markii maalintii dambe waxa dhacday wiilkii waxa lagu yiri maamulkii waa inta maamulku wuxuu yiri adiga iyo wiilkaas adiga fudud
ما أنا دعوان الصعدة شق تجمعها كحال أنا وحن أمضي القاعدة كرو يقول كان دبات تشوكتا ويوهيا أمضي القاعدة كرو ما أنت حسيت بدن ما أنت عن كدعونا يوكله وحوي دبس عدي ملأ أودر إلا الشقة إلا ملأ أودر ويدبس عدو مخايض له أو ملأ ضد كسكو صباحان له أو يعني ضد بدن فريان ويقف لقادينا إلا أنت أسيس عدي يوكله مركز أن تكون يروم وإن أسيس عدو أن لم توصل نقد معمل كوي محفيز دبعت لي أمر شيء وحي يقول أديك يقولك وحافظت أديك حافظت. ومعناه إذا محتاج شغل إنها تيجي تاني. ما يد يعني الدعوة دي واد إيش هكذا سمع حكم قبل كر لكن يقولك أديك وحن كل شيء أنا أديك في الدنيا شغلك تكتي. وهي عند هاي أتبان في شغله. اسكسوتي. ما أنا يعني دبعت لي قلت أو عيشون أدري ما إن يعني يقولك أصل جابي عيا وحين هذا يعني. gurigaan maaday maalinta wixii shaqaanigi wiilkaas kula qornayn shaqo isu diyaariyay marka xarunta markaas bilowbay ahayd xarumaha hadda warbaahinta waxa loo hagaajiyaa meel kala duwan baa loo hagaajiyaa dumarka ku diyaar garoobaan meesha meel u diyaarsan maahan dumarku diyaar garoo laakiin qolkan ba hoosta gabar ku soo xiranay dharka ku xiranay kadibna way bahalkiyanaysa meeshaasna xijaab weyn iyo shareer iyo هذا أمانك مو في عينين بلو شو تجي مركل لكن مش عاد ما تحجاب كي شريرك ودينا هسا وحلا صبح يصدرك وطلق شينا ورك وآخرس مركا مش يوم كدي يرجعوا ويقول كوي وصل قلي وحقي مع ذا ويل مركز قيبت فينا نسي قبل سنة ويل أود دجناها ويل كل ويل كامل ما كان ويل محن لها حرع ويل كحولة الباب كان ملحير كرو ما عندنا بالباب كسر حرنا هدان أركو وحي كده عنو مسؤول كمية ومش يوم كدي يرجعوا باي wiilka dhibaatadiisa maadaama la qabsaday waan iska aamusay wax weyn kama soo qaaday maalinta ku xigtay hadana oo meesha ku diyaar garoobay wiilka albaabka soo jabiyay waxaan dhahay meeshan waa ku diyaar garoobay maxaa dhacay shaqaalihiin suuq wacay farsamada ku jiray daacad wixii isku xada wiilkan gardarada qaladka cadaanka uu sameeynayo qaatay laga ahaa wiilka marka anoo meesha fadhiyay wuxuu igu yiri markaas uu diyaar garoobay kaamadii wixii ay diyaarsan tahay wuxuu yiri hadii aan كفصدو يعني كفصدو درا مش قدام بس قبر لقى استاو هدي أن كفصدو أنت يعني أي بيش على البابور سو سارين هالقصة إلا مش مركز أوجو يمسو جاران حتى هذا الكأدو يجبي مركز ديجان كهت كم قنتي ملك لا أتشوكتو هذا نقف دمرات هاي هذا مركز أنا وحنا قف السوق الكل ها يا كل هذا اللي يورج هو اللي يهرب ويجري وحندرامي يعني دجنانتي أقلمت ويل كاميرمان كوحي قعد صدا إن مدام ويل كان أبرتي قلت كيسي قف كيس أسوون وحبه ويقبل كرلاك وأركينه ويل كي يقدر دنيا أنا ماشى فديو أنا ماشى كعين هو ذو القادم ويمرك واقعي بنانك ويل كوبحي ويل كوا استقالنا أنا واحد صدي بدها صوت قلي ماشي كبر لما يستوي وماشي دي أسكفديه وقت الضمبة أيوة حن دمعها تاكسي كبرة ويلا تاكسي إيدا بشقالها كمدها دلوقتي أدري معي تاكسي إيدا البحور يعني عيم صباح تاكسي عن كسارينا تاكسي مكان الصباح وهن ربينا تاكسي بصورة حاركي ويلكي يعني مروا بني دباتيها وهذا يصير تاجن يعني فيرنا عارف عن تاكسي وكراي يعني أنا ماشي كتجي يعني أنا مركز وحين عدي مركز ويلك إسقبسني إن مدام الشقة يعني ما مركز حبك قبل كريم إنها شقة أنت أيجي أكتر marka wiilkii arkay waa u adkaysan waa inaan wiilkii yani sii fiiro ana wuxuu kuma sameyn karo waa nin rag ah in mana hayo qof markaas inta raaco wiilkii ornay waxaan kugu sameeyay yani qof damar waa dareemaysa waa isbedel wiilkii maashi isku qabsanay dagaal ku bilawnay ana gacanta labada warbu kaga horeeyay shaqaalihii markaas meesha joogay dhashanaga eegeen raskinda hawsu ka yeeday ana qof damar in rago islaynaya dimirka kuma siinay inaad isku eegtid أنا أقول لك ماشي أسكو قبصني ماشي سو حتى يقول طبنين وحتى أي كم دين دتك ماشي شقد إسكالها عشان أنا لقيت هوني أيضا مرة قارن لها وريها بلو يمشي أسكو بدفنين وريها بلو كسكو إن ما ح أنت كدفو يعني لوسي تلت الماما يقول كاس يعني لوسي دباتيو ولوسي تلت الماما وان تجي قرقي جانس كأدي وحان عبد القادر ويلك وحالي ذكر بالله دقيقة وحن مقالدي كواي وقف كلي وحتى يعني إذا حتى يعني أنواي بقف كلياتو يعني ويلكي قرب لوريجنا يسمنين نبالغ هرجية يعني هالقفونين هالرجه الرعب واي صبت يعني تيجان كي متشوجان يعني وقف قرني متشوجو
وعنيق آذان وعيشه هذا مركز وحنا حرير هذا فاملك يا ذاك يا بقرك بيشين على حريري لبعض هذه أول شيء وحلا صحيح نينك ملكي لها من الشكاها حكويني وكبد ذاك واحد لبعض سلوجي Soomaalida uu magangali iyo wax isiin jireen bariga hore bariga halkaas la joogtayna waad sidaan ku wanaajiyay waxaan rabaa inaad gabadha arinteeda gasho odaygu ila soo hadlay wixii waxaan ku reedaa cadaadi waan ka tagay cadaadi dhibaatooyin badan ma la soo kulmay muddo 2 sano ka shaqeynay nasasho xataa kuma aan helin idaacadaas waan ka tagay odaygu wuxuu yiraahday riikaale waxaan rabaa inaan arintii galee riikaale in arintii waa la galay odaygu meeshii yimi haddana waxaaba la waayay hal qof marxaatiga furo wiilkaas muddo aan ka caabinaay qof kasta wuxuu yiri waxba kama ogeyn markaas adiga waxa noqonaysaa qof qaldan waxay wiilku wuxuu yiri gabadha anagu waan islaynay laakiin iyada ay gardarnay anina waxa la wiilkaas ay gardarnaa dadkii joogay goob jooga ka ahaa yani dhibaatadeen wixiina cid ka hadli karta ma jirto laba wiil baa yiri arrintan ka hadlaynaa in wiilkanu ka gardarnaa marxaatiga furayna labadii wiil iyaga wiil kamida markii wuxuu la kulmay dagaal caga jugleen yani in marxaatiga furi karin wiilkii kale marka arkay wiilkaas in dhibaato la kulmay wiil kale aan dhahay iska dhaaf waxba markaas marxaatiga fur aniga sheekada way bilowday wayna dhamaatay sidii marka wiilkii kale wiilashii aniga shaqadii ugu soo tagay ama tacadigaas qabo waa iska soo tagay in waxaan imi isla maalintii waxaan go'aan ku gaarinaa deegaankan ka soo tagay garoobo waxa ay meeyeen muqdisho ugu dambeyntii aan soo gaar badan wax la kulmay caga jubleen mar badan wax la kulmay jawaad oo toosam soo wictaan in aniga la soo waco marka qaar waxa la kulmi jiray in aniga deegaan ilaa gurigeyga aan ka imaana ilaa goobta shaqada ilaa soo bursado oo aniga ordayaan maado taksiga hadan taksaaray taksiga ka dabo yani hada marka qaar waxaan diyaarsan jiray inaan yani dharda yani soo diyaarsado markaan arkay cid igu daba jirta ama cid daba socotay inaan dharka inta bedesho meeshaan caadi isaga lugeeyo oo qof shacab kamida aan noqdo saasaan gurigeyga ku soo gaaro wala kulmi jiray caqabado kala duwan marka qaar shaqo aan u socdaa waxa dhici karta in kwalro muqdisho kale waxay ahayd meelaha ugu badan riskiga aan kala kulmay in aniga kale aan meelaha kaamunku kale aan damacsanahay inaan kala war kasoo diyaariyo wax kasoo diyaariyo oo kale inta jidka ku soo jirtay nimanka rag ah ay ku soo dhexda ka helaan ku soo eriyado ku soo dhibaatay adoo yani xakaare gurigaaga timaado shaqo dambe laaban waa la kulmay laakiin qayb kama ah inaan Nairobi hadda ku imi ay naga jugleen ama soo eriyiso Nairobi aniga si caadi u arrimo waxbarashada u imi laakiin cabsi uma فضلا شرقرية هذا شرقريسان بريت 10 في عمد يلسان هذا شرقرية هدي قال أنا قلت واحد أنا يدوش شيء هذا شرقرية كل شرقرية هذا دلائل في دماغي شرقرية كل جين all of you نار كله في بدنك أعرف كيف الحرة يعنون دلائل كده وعن بس صورنا إلا وبين إلا صاحب بان كلنا هي بين ورا شرقرية يلا شرقرية